waxaa laga hadlay kuraasta Soomaaliland waxaan rabaa inaan wax yar iyada ka sheego Soomaaliland waxay sheegtay waxaan nahay jamhuuriyad madax bannaan laakiin 4.5 wax lagu qaybsaday dadka waqooyi ka soo jeeday waxaa la yiri kootadooda sida la yeelo sida nahaadeen inta xal laga gaaray 2016 markaan ka hadlaynay waxaa la yiri wariyaha mas'uuliyadda ugu sareeya waxaa la yiri waxaa jooga ra'iisul wasaare ku-xigeenkii maanta waxaa jooga saddex qof oo ugu sareysa madaxweynaha iyo labada guddoon ee baarlamaanka nin ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare oo ka soo jeeda deegaankaas waayo cid ka mudan maanta lagu ixtiraami lahaa waxa uu kaga sii daran yahay waliba inuu yahay aqalka sare oo matalaya dawlad goboleedyada hadduu dawlad goboleedyada matalayo aniga maanta uu matalayo Jubbaland aan joogo ma wuxuu matali waayay midda uu ka soo jeeday magaceeda uu ku sheeganayo qaabka ay tahay baa ku noqotay ma inuu matali waayaa suurtagal noqonaysa waxaan ku baaqayaa oo beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada dawlad goboleedyada kullu ugu baaqaya wadankaani wuxuu u baahan yahay badbaado kullama waqtigu sii jiitaba dib iyo caqabad buu galayaa